السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال مeel kastoo adduunka aad ka joogtaan ku soo dhawaada warkii caalamka oo idin kaga imanaya Bulqaas Media anigoo Cabdirasaaq Bulqaas ayaa warka idin la socodsiin doona qodobada wararka aanu idin kugu haynana waxa kamid ah dawladda Turkiga oo hanjabaad hawada u marisay dalka dariska ay yihiin ee Greega xukuumadda Kiev oo ka digtay weeraro cusub oo uu ku soo qaado Ruushka khilaafka u dhaxeeya Turkiga iyo Sweden oo walaac xoogan ka dhex abuuray NATO iyo ciidamada badda ee wadanka Faransiiska oo gacanta ku dhigay hub Iiraan ay u soo rartay Xuutiyiinta dalkaasi Yemen daawadayaal intaasi waa qodobadii warka ugu doorka roona haatanna isagii oo fidsan dawladda Turkiga ayaa hanjabaad xoogan waxa ay hawada ay u marisay dalka dariska ay yihiin ee Greega dawladda Turkiga ayaa waxa ay sheegtay inaysan istaagi doonin inta Greegu uu qaadayo talaabooyin khatar ku ah ammaankeeda madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu ka digay in xukuumaddiisa Ankara ay ugu jawaabi doonto si sharci ah daandaansiga ay wado dawladda Greega aragtida Greega ee ku aadan Turkiga waa mid ka soo horjeeda qaabka darisnimo wanaaga iyo isbahaysiga NATO ayuu yiri Erdogan oo waraysi siinayay telefishinka Ankara waxana uu sii raaciyay hadalkiisa inaanay suurtagal ahayn in la sharaxo ama la aqbalo dabeecadda Greega ee Turkiga ay ku daandaansanayso madaxweyne Erdogan waxa uu ku celceliyay in Athens ay hubaynayso jasiirada aad ugu dhow xeebaha Turkiga iyo degmooyinka waaweyn taasi oo ka hor imanaysa sharciga caalamiga ah eedaynta Greega ee ah in Turkigu uu ku soo xadgudbay hawadeeda waa mid aan sal iyo raad toona lahayn runtii Greegu waxa uu ku soo xadgudbay hawadeena waxana uu kordhinayaa xiisadda ayuu yiri madaxweyne Erdogan isagoo raaciyay dabcan ciidamadeenu cirka iyo waliba ilaalada xeebaha kama tagi doonaan ficiladan cadawtinimada ah ee aan jawaab loo helin Turkiga iyo Greegu waxa ay isku khilaafsan yihiin arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin dhulbadeedka badda Mediterranean-ka ee dhinaca bariga qaar ka mid ah jasiiradaha badda Aegean iyo tahriibayaasha xukuumadda Kiev ayaa waxa ay ka digtay weeraro cusub oo uu ku soo qaado dalka Ruushka wasiirka difaaca ee Ukraine ayaa waxa uu sheegay in Ruushku uu diyaarinayo weerar cusub wuxuuna uu ka digay in ay bilaaban doonto isla 24 bishan February Oleksiy Reznikov ayaa waxa uu sheegay in Moscow ay urursatay kumanaan ciidamo ah ayna isku dayi karaan wuxuu ku tilmaamay in ay markaasi ku xusayaan sanad guuradii ka soo wareegtay duulaankii ugu horeeyay ee sanadkii hore ay ku soo qaadeen dalka Ukraine weerarku sidoo kale waxa uu xusayaa difaaca Ruushka ee maalinta dhulka aabe ee ku beegan 23 bishan February taasoo ay u dabaaldegaan ciidamada wadanka Ruushka geesta kalena saddex qof ayaa ku dhintay weerar ka dhacay magaalada lagu magacaabo Kramatorsk sideed kale ayaa iyana lagu soo waramayaa inay ku dhaawacmeen magaalada Donetsk kadib markii gantaal Ruushku uu leeyahay uu ku dhacay dhisme ay degan yihiin dadkani sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka khilaafka u dhaxeeya dalalka Sweden iyo Turkiga ayaa waxa lagu soo waramayaa in uu xaalad jahawareer uu ka dhex abuuray NATO waxa jira calaamad sii kordhaysa oo muujinaysa in muranka sii xoogaysanaya ee u dhaxeeya Turkiga iyo Sweden ee ku saabsan ogolaanshaha dambe ee ururka waqooyiga Atlanta ee marka la soo gaabiyo loo yaqaan NATO uu daboolayo amaba uu keenayo walaac qoto dheer oo Ankara ay ka qabto xubnaha kale ee NATO sida ay qabaan khubaro badan NATO waa urur amni xubnaha musharaxiinta ahina waa in ay mudnaanta ay siiyaan walwalka amniga ee Turkiga sababtoo ah waa waajib ayuu yiri Professor Ugos Selikol oo ah aqoonyahan hore u soo noqday konsulka guud ee Turkiga ee Los Angeles iyo sidoo kale safiirka Suuriya, Greega, Iraq iyo Israel u fadhiyay dalkaasi Turkiga Selikol iyo khubarada kale ayaa ku doodaya in Ankara sida ay dhowr jeer ay muujisay aanay asal ahaan aysan ka soo horjeedin ballaarinta NATO iyo gaar ahaan xubinnimada Sweden laakiin codsigeeda koowaad waa in la taageero bay tiri halganka tobanaanka sano ah ee ay kula jirto argagixisada gudaha iyo dibadda
Ankara ayaa waxaa lagu eedeynayaa inaysan la shaqaynaynin ganacsiga NATO halka codsigeeda kaliya ay tahay in laga taageero dagaalka ay kula jirta argagixisada taasina waa mid u wada taala oo si wada jir ugu wada taala NATO ayay khubaradu ku doodayaan ciidamada badda ee wadanka Faransiiska ayaa waxaa lagu soo waramayaa in ay gacanta ku dhigeen hub Iiraan ay u soo dirtay Xuutiyiinta dalkaasi Yemen ciidamada badda ee wadanka Faransiiska ayaa waxa ay gacanta ay ku dhigeen kumanaan hubka fudud ah qoryaha darandooriga u dhaca iyo gantaalada lidka taangiyada oo ka yimid Iiraan kuna sii jeeda Yemen sida ay saraakiisha ay u sheegeen Wall Street Journal iyo wakaaladda wararka ee Associated Press dhacdadan ayaa ah tii ugu dambeysay iyadoo uu dalkaasi Yemen uu ka socdo dagaal muddo dheer socday inkastoo Iiraan aysan si degdeg ah u qiran qabashada hubkeedan sawirada hubka la sheegay in loogu talagalay falaagada Xuutiyiinta ee ay soo bandhigeen taliska dhexe ee militariga Faransiiska ayaa u muuqday in ay la mid yihiin kuwa hore oo ciidamada Mareykanku iyagana sidoo kale ay ku qabteen shixnado kale oo ku shaabadaysna xukuumadda Tehran oo lagu sii waday dalkaasi Yemen daawadayaal warkii caalamka oo aad kala socoteen Bulqaas Media oo idin la socodsiinay anigoo Cabdirasaaq Bulqaasa intaasi ayuu inooga egyahay inta aan warkan oo kala aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo